waxaan maanta igu kalifay inaan hadlo warar dhiila oo muruga sida oo naga soo gaadhay gobolka Saaxil oo maanta iskaga hor yimaadeen ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliska iyo dad shacab ah oo hubaysan. marka hore waxaan tacsiyadeynaya dhammaan dadka inaga dhintay ama inaga dhaawacmayna Ilaahay baan uga baryayno caafimaad siiyo annagoo ka xun dhacdadaas. anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxa igala qiimo weyn dhiigga hal muwaadin oo daata. xisbigu hore u sheegay mowqifiyadiisa. xisbigu wuxuu taagan yahay nabad wadajir iyo midnimo. waanu sheegay marar badan mowqifka xisbigana waa lagu soo celceliyay haddana waan ku celinayaa. annagu ma rumaysnin waanu ka soo horjeednaa mana taageersanin in xalku noqdo xabad xoog iyo ismuquunin. waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland si nabad loo siiyo si fursad loo siiyo nabadda oo dad badan ku jireen kula hawlanaayeen in arrimaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan xalkana qayb ka qaataan hadday yihiin salaadiin hadday yihiin xildhibaano golaha wakiilada hadday yihiin xildhibaanada golaha guurtida iyo cuqaal intuu ay ku hawlanaayeen in hawshaas ay qayb ka qaataan. waxaan ugu baaqayaa in madaxweynuhuna ciidankiisa ka qaado shacbiga hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoriyaha dhulka dhigaan. uma baahnin mar dambe inuu qof inaga dhinto shaqaaqooyinkaas. maanta waa 11 August sanadkii hore maalintaas oo kale waxa ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo baxaya nabadeed oo ay ku dhinteen dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo ciidanka boolisku laayay. waxaan qabaa dhacdada in laga baaqsan karay tamaanta dhacdayna in laga baaqsan karay baan qabaa. waxaan adkaynayaa inaan dhaqdhaqaaq dambe aanu dhicin. ciidanka shacabka hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan dhulka dhigaan. nabadda qof walba danbay u tahay fursadna in la siiyo dadka ku hawlan nabadaynta hawshaas. waxaynu ka warqabnaa gobolka Sool in shaqaqadii ka dhacday iyo dagaalkii ka dhacay uu weli socdo qarankana dhiigbax weyn ku keenay maantana uu weli taagan yahay. waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka salaadiinta aqoonyahanka ganacsatada culimada inaanay daawadayaal ka noqon arrimaha nabadgelyo darrada ah iyo khilaafka siyaasadeed oo ay ku dhiiradaan inay qayb ka qaataan xalinteeda. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqayaa in arrintaas nabad xalkeedu yahay xalkeedu aanu ahayn xabad xalkeedu aanu ahayn xoog. siyaasadda xisbiguna waa midnimo waa nabad. aniguna weligay horena dagaal sokeeyo ugama qayb qaadan imakana diyaarumeehi. nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taabtaan waana waajib saaran inuu dhammaanteen ka qayb qaadanno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow sariflaha Maxamed Money Exchange oo ka sarifo dollar iyo cash hadba kaad isticmaalayso. ha moogaan waqti kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tahay. soo dhawow.